السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارك غالية مركز كل joogtaan ba maalin wacan oo wanaagsan. maanta laba qodob baan ka hadli doonaa. labada qodob waxay yihiin mid waa midka wax weeye imaashaha Abiy Ahmed ee dowladda Soomaalida. midna waxa weeye kii siideynta Xasan Ciraaqi ee Somaliland. labada qodob baan ka hadli doonaa. dad ku cusub ay beejii soo biir hadii kale labada badan la san tahay oo hore la joogtay. ku horeey Xasan Ciraaqi ninka Xasan Ciraaqi ciidanka Soomaaliya kamid ahaa waxba ka ahaa ninkaas xilka laga qaaday oo wax weeye waa shacab weyn imka hadda dowladda Somaliland waxay ku ogeyd marka hore inuu ninkaasi yahay nin ciidan ka tirsan sargaal ah waxa weeye Somaliland buu tagay oo wax weeye xad ku galay deetanada si dowladdu way ogeyd waana la qabtay waana la xidhay baaris markii lagu sameeyay ninkan inuu shacab yahay oo maanta waxba ahayn ayaa la ogaaday taasina waxay keentay in la sii daayo oo ay sii haysigiisu dee waxba tari maayo taasana yaa sababtay in la sii daayo takale Abiy Ahmed saddex qodob saddex ujeedan buu xambaarsan yahay socdaalkiisu mid waa dibadda oo waxa weeye dowladaha ay sayaan waxa weeye ka soo horjeeda nidaamkiisa midna waa waxa weeye mucaaradka midna waxa weeye shacabka haddaan ku horeeyo ta dibadda shidaalkii Itoobiya ee soo saareysay aga ku yaalay ayaa gabagaba marayo waxa weeye inaan dhaqaale Itoobiya hadii tool kor soo kacayo oo hadii tool wax yaani reer galbeedkii waxaas ay ku gumaystaan ama ay ku cadaadiyeen ayna sii jir doonin buu muujinaya midna waxa weeye koridharka iyo wax weeye horumarka ka socda kilalada Itoobiya oo dhanba oo loo muujinayo shacabku yaani wax loo qabtay waana run oo waxba loo qabtay oo wadanka nimankii hore way cuni jireen ninkan waa nin waxa weeye wadanka dhisayo waxa weeye yaani wadaninimo ay ku jirtay weejan mucaaradka noqotay mucaaradka inay yaani meel kasto yaani aynan wax weeye ay jiraan dad mucaarad laakiin ay hooseeyaan wax weeye dad iska liita yihiin oo qabiila yihiin ayaa la muujiyay sababtoo ah in Soomaalida wax jirta kuwada la yiraahdo maxay ogaadeen in la yiraahdo qabiila kuwa kale Oromo ayaguna qabiila ba jira oo dagaalama kuwa xabashiyo qabiila ba jira dagaalamaya kuwa Tigray oo qabiila dagaalamaya jira intaas bayna waxba ahayn oo qabiila yihiin da shacabkuna way og yihiin dowladda Itoobiya ama maamulka Abiy muuji waayo nimankaasi waa niman qabiil u dagaalamayo aan qaran danka lahayn sababtoo ah haday jabhadaasi ayna qabiil ahayn waxa cadeynaysa maanta waxay ahaan lahaayeen jabhadada isku dhafa oo Itoobiya dhana laakiin qabiil weeyaan mid kasta waa dhinac buu taagay taasina shacabkii og yihiin oo waxa weeye cidna wax weeye maanta raaci mayso haddaba nin waqtigan kala joogo Abiy Ahmed ma yahay nin kaliya Itoobiya maanta ku haboon inuu maamulo way jawaabtay aniga oo waxa weeye sabab sababanaya maanta ninkan uu kaliya qaranimada taagan ba mucaarad haday tahay oo qaranimada taagan ma jiraan waa qabiil gabiyow isku geed marka sidaas buu ku yahay ninka kaliya ee maanta qaranimada Itoobiya u taagan Itoobiya u dhaxeeya magaalo kasta ama dawlad deegaan kasta Itoobiya ku yaalana macnaheedu horumar cagaaran oo u gaarsiiyay waana geesi ninkaas nin waxa weeye qabiiladaasi dhulka dhigi karaana ma aha cid kasta waxay ku qasban tahay inay caawiyeen la shaqeyso ciidan la shaqeeyay waligeed qabiil baa naga buurta ma joogin bar aad iyo aad baad maasantihiin hadaad channel ku cusub tahay soo biir hadaad ku cusbeen hore la joogtiin waad maasan tahay video na share garee aad iyo aad baad maasantihiin